magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa saaka aroortii soo gaaray la taliyaha amniga qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaas oo diyaarad qaas ah ay ka soo qaaday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Fahad Yaasiin ayaa waxaa garoonka aadan cadde ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ku dhow fila Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha, waxaana sidoo kale garoonka diyaaradaha ka soo galbiyay ciidamo gaar ah oo geeyay xarunta madaxtooyada. haddaba maxay ka dhigan tahay imaanshiyaha Fahad Yaasiin? Maxamuud Cumar oo ah falanqeeye siyaasadeed sidoo kalena ka tirsan hay'adda caalamiga ee xasaradaha ee fadhigoodu yahay magaalada Brussels ayaa ka hadlay imaatinka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ku soo aaday xilli adag haddana markaa xasaasi ah. falanqeeye Maxamuud Cumar ayaa shaaca ka qaaday in imaanshaha Fahad ay macno weyn u tahay madaxweyne Farmaajo, dhanka kalena uu walaac ay ku tahay markaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. waa sida uu isagu hadalka u dhigay. imaanshaha Fahad Yaasiin waxay wax weyn u tahay madaxweyne Farmaajo, waxaana ay walaac ku tahay dhanka Roble ayuu yiri. qorshaha Fahad Yaasiin ayaa ah in shirka golaha amniga qaranka uu markaa ku soo bandhigo warbixin la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax, balse shirka ayaa dib u dhacay kadib markii diyaaradii siday 17 bishan laga celiyay garoonka diyaaradaha oo markaa ku yaala dalka Djibouti dibna loogu celiyay dalka Turkiga. si kastaba la taliyaha amniga qaranka ayaa waxay haatan si weyn isku hayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hore uga qaaday xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA kadib markii uu soo shacbaxay warka sheegay in xoogaga Al-Shabaab ay dileen Ikraan Tahliil Faarax.